corona muxuu ku baday waa su'aasha iba furku ah barnaamij wacyigelin ah oo habeen kasta ka soo gala channelka Lucky Wise Podcast. barnaamijkan ayaa ah bridge-ka ama buundada isku xidhaysa dadka masaafo ahaan ay duruufaha caafimaad kala fogeeyeen annagoo ka duulaynaa halku dhaga kala fogaanshaha jidhku kama dhigna kala go'a bulshada. haddaba si aad u macmiilato barnaamijkan macluumaadka badan xambaarsan fadlan meesha guduudan guji kambaleelka ama koortana ku darso haddii aad nasiib u yeelan weyday in lagugu marti qaado barnaamijkan fadlan corona wuxuu ku baday qaybta faallooyinka noogu reeb iyo wixii kala ee talo iyo tusaalooyin ah. بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او wanaagsan daawadayaasha hawada noogu helan kulli caam oo antu biqayr ramadaan الكريم meel walbo aad joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamijkii aan ugu magac darnay corona muxuu ku baday barnaamijkan oo had iyo jeerba aad ka daawataan channelka Lucky Wise Podcast todobada fiidnimo ee waqtiga UK barnaamijkan ayaynu had iyo jeerba diiradda ku saarnaa cudurkan dilaaga ah oo saameynta ku leh bulshada dhexdeeda iyadoo aanu qadka telefoonka si lama filaan ah aanu la xiriirno hadba qofku waqtigu noo saamaxo haddaba caawa waxaanu qadka telefoonka si kadis ah uga wici doonaa waa fanaan la xamiiste jilaa Fuad Daahir oo ku magac dheer Fuad عبد دوشة وعد هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فؤاد عبد ماي لجن ماي أبوي سلام سري ما شاء الله ولا شيء معان لك يا بقرد سيتها سودو رمضان ونكسن رمضان الكريم أبو معان سيتها في عنتها وقوف عنها الحمد لله سيتين عندي كورن المي كورن ولكن سيدي كورن سيتي ما شاء الله ما شاء الله في عنا هاي فؤاد عبد لايف باد قدك تليفونك ugu jirta oo bulshaweynta Soomaaliyeed baa ku daawanaysa ku soo dhawaa barnaamijkii corona muxuu ku baday maxaa ku jira live bad qadka telefoonka ugu jirta barnaamijkii corona muxuu ku baday waan kugu soo dhaweynayaa تنقدر ولا لو تكلمنا أو تعسنا رمضان بين كجنا وعبادة سننا شكا وضايل لك وحنا سو شيء وام حد لك نقدر أصحابي وأوجدين فؤاد عبد ويقول مية تليفونك كعلنا يا فؤاد عبد Are you serious Lucky? تليفونك بحي يقول بس هذا ولا أنا بحاول إلس كذا إلس كانه فؤاد عبد تليفونك بحي يقول بس إلا وتبكاني عندك تليفونك يقول بس خدك على الدور ضدك وكو داونو يا تليفونك يقول بس أباي ورت الله والله وانا حي صوبت أنا وأسكمر من سنة وأسك عبادة سنة صومكي وكجرنا وأختها مكافلين هنا سنة قال سيد الله فدينا يسوع برنامج كاي كورونا محوك بدي كورونا محوك بدي ما لسه هاي نكركري وأختها horta kadis ku soo wacay dadka dhanba ku wacay Fuad Cadow horta ku soo dhawo barnaamijka ku soo dhawo walaalkay qaadiyo waa ku gaaday raali ahaaw laakiin shacabka bulshaweynta Soomaaliyeed oo ku daawanayso haduu alla ku rooyaa aan door biday in aad barnaamijkan igala qayb qaadato kadiska ah intii ka horeysay saas baa loo gaaday Fuad Cadow aan ku weydiiyay adiga naftarkaaga corona muxuu ku baday Oh my god la qorta ilaahay subhanahu qadirka aan walaalo asaa ma iska la runtii waxal bood inta dhimata Allah u naxariisto amiin ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah maaragtay inta xanuunsan Allah caafiyo amiin marka waxaan leeyahay horta hala samro walaal hadaan caawa ku dhaxlakiyay garanaysaa corona muxuu ku baday aan kaaga sheekeeyo wallahi kun way ka badan yihiin ma soo hayad adigoo ii soo koobayo Fuad Cadow corona
muxuu ku baday ka fu'aad ahaan markay caawo ay soontay kaliya guri ku dhex tukanay sallayaan ku taagana haye badan ma dhigi kartaa lakay bishaan barakaysan u jeedid masaajida way xiran yihiin gurigaas dhex fadhiya waxaan ku dhahay wallahi ma garanayo corona wax badan buu nadbaday lakay wax badan buu nadbaday kalinimo nadbaday anagii na kala geeyay kun iyo kooban ma aragtay dadkii kaagama sheekayn karo wax dhacay waa aragtaa taleefanka ku soo dhaco waxa isleedahay ma qof garanaysa maanta ileen umad wala dhamaaday taleefanka ku soo dhacay waxaan gaaray inaan sasto taleefanka ku soo dhaco lakay taleefanka waxa uga naxay haye والله وحاسة محل وليه أنا مقف بلاي هذا عن قرنا يا مشان يود بيسي أما هذا أسلام الدنيا جريء والله مركا ولا إله نقدر قال والله رمت ولا لي يا سام فدي بوفديه أما مركا تكتا أما أنتانتي أما تيجي في الدار تبقى عجز وإستجا طاقة الدار هذا بلكون كفيريا والله من أنا أصلي هذا شدك أسكن راح دنا وصوف استالك يا دنا وحياة كدي مكان جوه هذا ما بعد طاقة في المكان وضدي لا وضدي المرينين هل قفص السعودة والله أنا من واقع الشوعة ولا رسيب النقطة أنا نبي كل شيء لك يجي واقرتي فؤاد عبدو maxaa kula yaab badnaa ee aad la kulantay inta uu socday cudurkan dilaaga ah ee corona lakay alla ilaahay caashira lakay waan soo kacay markaan soo kacay lakay ila qof waxaan shaqo u barto adduunyo ordo oo ila labisto oo baartay subaxintaan ku bixisay markuu habeen markaa saxnaa saacada iska bixisay walaal saacadii nafta u baratay marka kala haye aan soo kacay lakay subaxii salaad markaa tugtay aan qabayda labisto qabaysto kafeega aan boobsisto baxaba gaariga aan aado nin shaqo u socdo markaa banaanka soo baxan baa waxaan arkay lakay in magaalada cidlo taayba haye kowle wala gaariga dhaxgalay gaariga iska taxsan iska dhax fadhiyay waan qeyrooda lakay haye adduunka maanta aan joognay heerka aan marayno maanta waxa socda adduunka dhacay masiibada socod ilaa waxaan adduunyada inay qiimo lahayn badeed sideeda runtii haye ya qofna iska labistay shaqada u soo kala hay ka waraade haye inaan shaqaado kale shaqo u socdo kale wallahi billahi taala inaan been ku sheegay waxa weeye isagoo bandow tahay baaba iska labisatayba iska labistay lakay ha haye dagay marka gaari ku soo socdo gaariga ka dhaqna baa harka magaalada inay marka banaanka soo baxay baa waxa gaariga ila waxba socon karno shaqada jirin adduunka masiibada iska zakbaalkan corona ah hal ilaahay karkariye kan waa shaqo jacaylkaaga dabcan de waxa ilaa inta aad bisanaysay ilaa inta guriga aad ka bixisay intaas oo dhan maadan soo xasuusan aan soo xasuusan lakay guri dhax fadhiga nacay wallahi waxa weeye waa dareemi karaa fu'aad cadow maxaad isku madadaalisaa maadaama guriga la joogo wallahi waxaan ku dhahaa ninkii amaan ku dhahaa lakay wallahi runtii waxaan hurdada hurdada iska dhabaatay ilaa qofka bini'aadamka insha Allah socota markuu soo shaqeeyo akal hadido ama activity soo sameeyo guriga ay maato oo meerato iska cuntayso salaada dukato sariirta de macnaha tagitaankeeda dhib kuga aboogta haye macnaha musugi kartid hadda laakiin marka guriga ku dhaxiran tahay oo guriga ka dhaxbixin lagu yiri lakiyay marna tusbax baan qaataa tusbax baan haystaa ku waramo tusbaxan wata baaragta waa sax tusbax hadda ugu yaraaday kii boqolka ugu yaraaday hadda xaraasada midkii dheeraa ee kunka Ameerika doonta garan la ha oo hooyooyinkeena haysteen kowde mana wala quraana iska akhristaa waxaan ku idhaahdaa de mana de asagaran social media inka sareeyo social media aan ahayn marka de saan u joogana daaqadaas Ilaahay ugu taxamid daaqada oo istaaga la kiyay هذا داقد هير وحبره لكن داقد الحديد على فيري دا كدو هذا فيري دا استاغيا دهانو جيدو باسكيا ها waxa weeye daaqadaasi waxa weeye waa sheenada Niciimo Joker waxay tiray boss wax un baan post gareynaya bay tiray taas la igu itixaamay tiray marka lakay isaan mutaag TV ma daawanaya waa istaagaya daaqada istaagaya waan jeedaa ana balqan wax keeyo marka wadadii jidka cidla marka arkan wadana wadnahay waa hada ku dhaw corona ilaahana dhaafin karo ilaah baana ka baryeena in uu dhibkiisa iyo shartiisa iyo xanuunkiisa iyo dhimashadiisa bay Ilaahay inuu dhaafiyo fu'aad cadow fu'aad cade ma jirtaa wax isbedel oo ku yimi noloshaada cudurkan inta uu socday walaalay su'aalaha wallahi waa muhiim marka aad u mahadsan tahay عاونا مركز عن كل ما تعليه فرصة عائشة سينا الله يسوع وعد يسوع جلس ما شاء الله هل كان سكور السنة مركز رمضان كلي والله رنت أنا باي فرصة جعل لك هي أصحابتي وأرجع كميتها ماركو
runtii ana xaafadana deganahay caruurta halkan joogan Shagar Bush isma tagi kara waa aragtay waxa igu daran la igu naxdin badan waxay tahay caawa aan kal wala ilaahay una xariistay la jirkeena baad xudeydii oo meedkiisu xataa leeyahay waa aragtay Allah yarxam rahiim kala aasay tan qof kaliya binda ka shan qof wallahi oo taagan maanta aan ku waran la kiyay ya ilmadeena man cadeen baad xudeyd aniga saalo fulana inta sano wada degan aabay kala waxa qofkii fanku ugu soo dhaweeyo waxa aad waliga ii garab taagan hatta la maanta qofka ka jeclay maanta magaalada ma joogo xisbi respect iyo sharafta u hayna u wada hayna waa ogtahay ma tagtay aade la kiyay waa sax runta waa mutawa baa la kiyay maanta marka corona wuxuu baday maanta la kiyay igu yaab badna igu ajaayib badna waligaan ilo weyn la kiyay taariikh soo koobi karo wallahi tan mucjooyinka aan waliga xusuusnaayay aan la kulmay kamid tahay waa gartay waxa weeye waa dareemi karaa maxaa yeelay waa la jankeeni waa fanaankeeni waa abwaankeeni Allah yarxam raahimiin waxa weeye oo maanta oo aanan de u soo gacan dhiibi karin caruurtiisii waxa weeye waa xanuun kamid ah weeye waxa koronaha uu nabaday beenta maaha taas fuaad caddo guntiga gabagabadii maxaad kula tanin lahayd bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku daawanaysa fursadan qaaliga adigoo ka faa'iideysanaya runtii boqorada oo tankii runtii su'aashan wallahi waa sugayay waan ku maasitay su'aashan inay weydiisay runtii wallahi laakiin bulshadeena anaga Soomaali ahaan waa soo dhaqaana dad soo qabtay madin dhaqankeena waa ognahay dadka social jeclaanahay social isku jeclaanin maxaan ku yiraahdaa ma aragtid hadayna maqaayadina ka soo baxna maqaayada fadhiyo ama suuq la tago ama meel bulshada isugu imaado macnaha adduunka meesha tagano salahan adduunka waxa ku jira meesha tagano waan naga yaqaana sax dadan kala harin isku kooba meel taagan laakiin dadkeena bahalkan cudurka Ilaahay ka hayo aad u afagta gareynaya amiin qaasatan kuwa Yurub joogo waxaan fahanay oo xaaladda la socoto ugu jeedna oo waa lagu la yaabay ummadda kale kula yaabay sababta laakiin aw fariintan waxaan si gooni ugu dirayaa oo aan ugu sheegaya oo aan Ilaahay rajeenayo inay wada gaarto shacabweynaheena Soomaaliyeed qaasatan Soomaaliya jooga sababtoo ah walaalay wadakeena waa arta xaaladdiisa ka sheekana intaas sanaan iska soo rafaadsaneen dawladeena way dadaashay Ilaahay ka hasiyo dadkeena waa la wacyi geliyaa idaacadaha laga hadlaa social media waa arta adduunka macnaha internet meel iska gaar technology way arkaan wali lakiyay waxaan maanta dhageysanayay been idaacada runtii lakii dadkeena in la kari laayahay cudurkeena inuu sii faafayo tusaalahan wadanka inoo dhow ee aan jaarka nahay ee aan kala maamul Kenya waxa ku haya maanta sax sida aragtay ayuu Kenya fahant sax marka walaalay dadkayga waxaan leeyahay waan ogahay dadku waa dadka masaakiin dhaqaale ku filan ma haystaan guriga hadii joogaan waxay cunaan ma haystaan laakiin Ilaahay wuxuu ku yiri dadaal ana waa kula jiraay koronaha waa in lagu dhex noolaada sida la dhahay macnaha laga dadaalo ma aragtay health and safety nadaafadii in lagu dadaalo nafsadii oo kala hadii qofkii maaski wajiga lagu xidhay inaan la haysanayna wajiga xidhaan in ma aragtay qofka gacmihiisa dumeel ku taabto inuu isku nafsadiisu ku tareen garay macnaha gacmihiisa mar walba dhaqo sax Soomaalida garan inaan la sutagin qofka shaqadiisa ka imaado xataa inuu gurigiisa tago cid inaysan cid u tagin inaan dad isbitaal lagu soo booqanin inaan meyd la raacin masaajidada waxaan ka dhahma garanayo Soomaaliyana waa sugnahay mugti laakiin bulshadii in dawladii la shaqeeyo in la wada shaqeeyo in nadaafadii laga wada maartay in cudurkan sidii loo wada dabargoyn lahaa laga wada shaqeeyo weeyaan dawladda kaliya waxa maqal marta la shaqeeyo garab la siidin ma fahanti marka waxaan ilaa dadkii dawladda hal maqalo dawladda amarkeeda hal maqalo ma aragtay habeenkii badowga saacadii marka laga guriyaha hal joogo ta Ilaahayna la tala saarto sookan Allah naga aqbalo insha Allah sookan bishan barakaysan fadligeeda Ilaahay ummadeena ha badbaadiyo waxaan rajeenayaa inay dawladda maqlaan oo ayaguna isbadbaadiyaan ما شاء الله aad baad u mahadsantahay Fuaad Cadde sida quruxda badan oo barnaamijka caawa aad igala qayb qaadatay aad baan ugu faraxsanahay waxaana ka raali gelinayaa kaliska aan ku soo wacay anoo og in kaliska aadan jeclayn marka laakiin xaji wala la yaan iskarinta anaga waayay waxa sheegay hada hoosta tax message la soo diraa moqti waxa sheegay hada laakiin sheenada sadii kuwi ka horeeyay aanan ku sameyn xoogaa soo igu noqon maysa marka ya waxaa la jeedaa saddex mar u gaadhay boogta oo qeynaysa
walaal aad u mahadsantahay adiga iyo familkaaga iyo inta ku garab joogto iyo gacalkaaga ehelkaaga waxaan idin leeyahay iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaba Ramadaan wanaagsan ilaahay maaragtay kuwii ka sheekeeya ayagoo nabad qabo isu imaada ma aragtay insha Allah ayagoo nabad qabo indhaha isku saar ilaahay naga dhigo Ramadaan wanaagsan walaashay thank you very much lak xaaji waa isku qoranta saaxiibta rabta Allah ku shukro aad u mahadsantahay Fuad Cabdi assalaamu calaykum Ramadaan kariim walaalkay walaashay thank you bye bye thank you hagaag guntii iyo gunaanadkii caawa barnaamijkii aanu ugu magac darnay corona muxuu ku baday intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa ballanteenu waa 7 fiidnimo ee habeen dambe waqtiga UK fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh haddii aad fariin masatala iyo tusaale aad noo haysana commentiga Ramadaanul Kariim assalaamu calaykum